gabanihii hore Gaarisa Mudane Cali Qorane ayaa xalay kulan gaar ah la yeeshay culimada iyo waxgaradka magaalada Gaarisa. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimaha bulshada iyo sidii si wadajir ah loogu wajihi lahaa doorashada guud ee la filayo inay dalka ka qabsoonto sanadka 2027. Mudane Cali Qorane ayaa culimada uga mahadceliyay kaalinta weyn ee ay bulshada ku leeyihiin gaar ahaan xagga wacyigelinta, nabadda iyo mideynta shacabka. Waxa uu sheegay in taageerada culimada ay muhiim u tahay dhisidda hanaan siyaasadeed oo ka turjubaya rabitaanka shacabka. Waxaa la isla qaadaa dhigay in maalinka Sabtida oo berrito ah uu ka dhici doono magaalada Gaarisa kulan ballaaran oo siyaasadeed kaasoo uu Mudane Cali Qorane si toos ah ula hadli doono shacabka Gaarisa. maadskale aan maanta iskugu imaanay waxaan iskugu imaanayna waa talo ininka culimaatiin culumadana waxaa weeye qayb weyn oo bulshada waana qaybta ugu fiicneed oo dadkan tilmaan looga baahan yahay, diin baris looga baahan yahay, wixii khilaaf oo imaado inay xaliyaan. Marka ummadan qayb weyn baad ka leedihiin maamulkeeda. Sida nili sheegay ani hadda waxaan ku socday Sabtida haddii Ilaahay nafteena ku simo oo xaflad weyn aan leenahay. xafladda oo annaka qoys aan ka dhalanay waad ogtihiin talo iska jirtay. Talada way daba dhamaatay ilaa say u dhamaatay waxaan ku maqnayn nimankii kale ee laga tegay bal inaan qancino sida wax u dhaceen loo sheego meesha aan wada marno. wili wadada maana gaarin laakiin wilina kamaana ku qusanin waa daba soconaa. Marka inaan isku imaano oo shaacan ka qaadno oo dadweynaha u sheegno go'aankii la gaaray yaa horta midda muhiimka ee Sabtida aan samayn rabnay. midda labaad waad ogtihiin annaka xisbiga aan ku jiri jirnay safartan dal noogu dambeysay waxaan ku jirnay xisbiga Jubilee hadee dowladeedii way dhacday. xisbi weyn buu ahaan eegan uu baabay. annaka markaan ka leeyahay wuxuu leeyahay Mount Kenya buu leeyahay xisbiga arijir inta aragtay orgi waa ugu weyn baaliyiri annaka geelay baan anaa ratib weyn buu leeyahay. xisbiga maanta wuxuu leeyahay jiir aad u yaraaday. marka inaan ka guurno aan meel kale u guurnaa rabnaa. marka xisbigan dawladda yaan rabnaa inaan ku biirno. marka Ilaahay nafteena ku simo waa madaxdii madaxweynahan idan ka helna xisbigiisa inaan galno. marka inta asaga ku xigtay ee xisbiga ugu weyneed buu soo diraya Sabtida oo ay kan inta noo imaanayaan oo xisbiga noo soo dhaweynayaan. marka waxaa looga baahan yahay reer Gaaris oo ininka ku jirtiin inay aan soo dhaweyno. waxaa lagu yidhi culimada waxay tiri waa annaka waxaa laga yaabaa inaan madrasa aan ku maqnaano Sabtida. waxaa weeye markii arrin weyn jirto oo wadaadahan wahaabiga inta imaanin waxaan malay 1977 ba inta ay imaatay oo ay imaadeen dugsiga waxaa noo dhigi jireen wadaada markii wax yar uu jiro oo duqdo madax xanuun ay u yeerto oo wan ay u qasho macallinka wuxuu dhihi jiray maanta waa Faataxa soo mara. annakana aad ugu farxi jirnay hatta Faataxada aad u mari jirnay. marka ininka maadaama bulshadii aad maamulkeeda aad qayb weyn ku leedihiin meeshii weyn oo la iskugu imaado oo lagu tashanayo haddii aad ka qayb gashiin oo madrasada in bal lagu soo dhaafa in ay tiraada meesha lagu tashanayo aan bal shaahid ka noqono hal dharaare wax ku dhumi ma jirto. hatta carruurta kuwa weyn oo madrasada kalaasiha weyn ku jiraan 5 wiil iyo 5 gabdhood waa la soo qaadi karaa oo la dhihi karaa kaalaya bal meeshan baa lagu tashanaya soo dhageysta wixii jiro iyo sida dadka lagu maamulo
iyo dadka say ku tashadaan iyo say la isku doorto iyo madaxda waddanka aad soo aragtiina kaalay oo na raaca waa dhigi kartiin waddankan hadda annaka gaalaa iska leh oo nagaga badan lama shaqeeyo sabtida iyo axadda weligiin inin isweydiinin ba laga yaabaa sabtida axadda maxaan loo shaqaynin sabtida waxaa loogu talagalay qolada Seventh Day Adventist la dhaho khaniisadda aadaan sabtida inay khaniisadda aadaan gaalada kale ka badan ee Catholic iyo Pentecostal iyo Protestant kana inay aadaan dhaarta axadde annaka maadaama aadaan u yarnahay talada kuma jirno laakiin wadamaha muslimka ay ku badan yihiin Soomaaliya iyo Sacuudi iyo Jumcada lama shaqeeyo annaka dawladdeena hoos hadda bardhaweyd aniga waxaan ka qayb galiyay culimada culimadana ninka gobolka soo galeen wuxuu yiri culimo nafaas kama leh dawladda Kenya laakiin dawlad goboleedka waxa loo soo dajiyay in walba dantooda inay meel marsadaan haddii annaka aan gobol aan nahnay oo jumcada aan masaajid aadno dawlad ahaan waxaan goosan karnaa inaan dhahno jumcada ilaa 6 saac ma shaqeynayna sabtidana ilaa 6 saac ma shaqeynayna oo ku bedeli karnaa ama waa 3 bari oo kulli baan iska qaadan karnaa waa annaka goosan dawladda annaka iska leh danteena bari weyd ani markaan ku jiray mar baan annaka dadka dadweynaha haday goostaan inay shaqaale loo qoro looda u bakiso waa loo qori ayaka dantooda meeshaas ay ku jirtaa oo dadka ay maartay ay oo dawladdan ayaka iska leh ayakana sida ay rabaan waa inay u ekaataa marka ruux loo la bakisi hadii ay dawladda ay qoran karto nin oo sheekh maxay u qoran karin oo qayb weyn ka qaadanaya bulshada maamulkeeda iyo diinteeda iyo ammaankeeda iyo wax walba oo shaqo walba loo diri karo marka waxa weeye un fikrad xuma bini'aadmigana waxa weeye inta aad nooshay waa inaad in adadaashaa oo in badan aad qabataa bahashan hadda la dhaho kaneecada waxay noolaataa 3 bari ilaa 7 bari keli ilaa 7 bari ama ka soo qaadna inta ugu badan wixii ka dambe way dhimani adduun idil bay dhaqi way rimi way dhali intay cuni ruux way sun ku beeri oo malaria ku ridi way wareegi oo hadda gurigeyga bay ka tagay jiraankay tagi waxina waa 7 bari keli adduun idil bay dhaqday ilmay ka tagtay wax walbay ka tagtay marka adiga waxa laga yaabaa 70 sanaba inaad qabanin wixii maartay kanaaca oo 3 bari keli noolaani marka dadaalka waa in la badiyaa waad ogtihiin dhaadhawey taladii soo baxday weli xoogaa waxaan ugu yeeri jirtaa suuq nimankii la reebay ma qancin ani walbahaar iguma hayso walbahaar waxay iigu haynin taladan horta waxa tashanaya waa dad aad u badan inteenan iyo in kaloo leeg awada waxaan u maleynaa 400 oo kun oo ruux ugu dhay taladoodaan haynaa taladina meel baan ku goosanay danna waan leenahay oo wax baan noqon rabnaa haddii intaasna laba wiil oo ayaka ka dhashay oo ay u taliyaan taladooda kama weynaan karaano waxay ama wax ku halayn karaan ama ayaka ay ku dhumi karaan oo maartay ku tala foofi karaan inii uun dad kan uu la socdo oo ay garab u yihiin laakiin taas awdaq bay u taallaa nimanka khalad ma aha meel un bay wax ka arkeen si un bay wax u arkeen wax un bay tabanayaan laakiin inta ay la sugayay inay fariisiso oo ay wax tusto waa intan anigana intan baan ka mid ah wixii la dooni haddii la wada dooni oo wixii loo wada dhanya la doonayo
haddii si lagu heli lahaa unba anakoo dhan nala siman. taasna waxaan u malaynaya awda qon baa geli oo geed baa jira culumaa jirta mutacallam baa jiraan madax kala jiraan waan isku imaan doonaa oo laga tashan doonaa haddii aan wax maaganna oo aan wax doonayn sidii lagu heli lahaa waxaa weeye inaan waddada uun aan marno taasna waa uun la gaari doonaa. marka dawladdii waxaan u malaynaya dhulkan hadda ganaalla maray waxaan deganay 140 iyo qadir sana si un baa lagu noolaa maantana dawlad ay jiraysa bal laakiin waxaa weeye sidii lagu noolaaba intii laga guuray baa si kale la bartay. haddii sida aad ku noolayd intaasoo sano 70 sanana marba hadday kaa dhunto maba soo noqonaysabu. marka dadkii haddii sidii la waayay oo dawladda ay dhuntay waxaa la iska noqday wax maartay waa wax weyn baa dhacay. marka ininka ilaahay baa qoys naga dhigay ruux aan dulmayna ma jirto midnimada aan muujino dawladda aan soo celino dadka muxuu ahaa kale ee nala deganna aan kasbanno. maanta wayna ogol yihiin dawladdeenna annaga keli iskumaana koobin ayakan waxan baa ka soo gaaray. hawlahan walaalaheen in kastoo aan ugu imaanay 2900 oo ruux oo ayaka oo dawladda u shaqaynayaan annagana waxaan qornay qariib 400 oo haddana mashaqada laga bixiyey oo maanta ayakii waalidkoodii iyo waxoodii annaka maanta nala socdaan oo annaka filanayaan inaan soo celin oo maanta qabiil ayaga waxba u tareen walaalaheen samawada waxaa laga bixiyey 1200 ruux. marka aan dadaalno midnimadan aan muujino sabtidana ilaahay nafteena hadduu ku simo shirka ka soo qaybgala martida soo dhaweeya wixii la sheegi culumadana ruux baa u hadli doonaa waxaa dadweynaha u sheegaysiin u sheega wixii laga wacdin wacdiya hadda siyaasi hadduu ahayn. marka intaasaan caaw idinku yeeray waad mahadsantihiin soo dhowaada ininkana wixii fikradu aad qabtiin waan idin dhegaysanayna caawdoo dhan baan haysanaa faaswaanaysanaa markaa soo dhowaada. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. si kastaba ha ahaatee kulamadani ee uu cali qorane la kala yeelanayo culimada iyo shacabka Gaarisa ayaa calaamad weyn u ah ololaha siyaasadeed ee soo socda waxaana la filayaa in kulankani ballaaran ee berrita ka dhici doono magaalada Gaarisa uu noqdo mid xiiso leh oo lagu dhawaaqayo fariimo siyaasadeed oo saameyn ku yeelan doona tartanka doorashada guud ee 2027.